السلام عليكم دمان داوديال soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka oo xiiso badan dabcan maanta waxa soo qaadan doona waa shanta magaalo ee ku dhex yaala laba qaaradood dhexdooda sida haday noqoto Afrika iyo Aasiya mise Aasiya iyo Yurub aniga ku bilaabi doona qodobkaygan koobaad ayaa soo qaadan doona magaalo lagu magacaabo Riyadh waa magaalo ku taala dalkaasi Aasiya ku yaala ee Kakhanistan وانا عاصمة gobolka Riyadh وانا meesha laga qodo saliidda iyo gaaska ugu weyn ee dalkaasi Kakhanistan magaaladan ayaa ah transcontinental iyadoo laba qaaradood ee Aasiya iyo Yurub ku dhex taal Riyadh waxay asal ahaan la degay bartamihii qarnigii 17aad iyadoo waagaas kalluumaysiga caan ku ahayd laguna magacaabi jiray Guryef waxa loo bixiyay Riyadh sanadkii 1991 kadib burburkii midowgii Sovieti magaaladan waxay hooy u tahay qiyaastii 300 oo kun oo qof dhaqaalaheeda ayaa maanta ku tiirsan wax soo saarka saliidda iyo gaaska anigu qodobkaygan afraad waxa ku soo qaadan doona waa magaalada Orenburg waa magaalo ku taala koonfurta waqooyi ee dalkaasi Russia waana magaalo ku dhex taala laba qaaradood ee Aasiya iyo Yurub dhexdooda waxaa la aasaasay sanadkii 1735 iyadoo ahayd qalcad military waxay ahayd xarun ganacsi oo muhiim u ahayd wadamada bartamaha Aasiya ku dhex yaala waagaas maantana magaalada waxa ku nool dad lagu qiyaasay 600 oo kun oo qof waxaana ku yaala warshadeynta gaaska warshadaha injineeriyada iyo walibana macadyada lagu barto warshadaha injineerada mise industrial engineering anigu qodobkayga saddexaad aan ku soo qaadan doona waqti dheer ka hor intaysan dabcan magaalada hadda ay tahay ayna noqon ayaa magaalada Magnitogorsk oo ah iyadana magaalo kale oo Russia ku taala ayaa iyana dabcan qalcad military ahayd taas oo ay boqortooyadii dabcan Elizabeth ee dalkaasi Austria ay dabcan sanadkii 1743 dhistay isbedel degdeg ah ayaa lagu sameeyay intii uu socday taliskii dabcan midowgii Sovietiga lagana soo bilaabo sanadihii 1930yadii ayuu dabcan ninkii waagaas ka talin jiray dhulkaasi Russia mise midowgii Sovietiga lagu magacaabi jiray Joseph Stalin uu dabcan dib u habeeyay magaaladan iyadoo qayb ka ah qorshihiisii 5 sano ahaa in inta badan aagaas laga dhigo magaalo soo saarta warshadaha birta samaysa ilaa iyo maantana dabcan magaaladaas waa magaalo warshadeed iyada oo warshadaha birta ee ugu badan ay dabcan ay ku taalo magaalada daanteeda xigta dhinaca Aasiya halka dabcan qaybta Yurubna ay degan yihiin dadka shacabka ah waxaana qiyaasta lagu qiyaasay inay ku nool yihiin dad ka badan 500 oo kun oo qof أنا قد بقضب كيغان لبعض طبعا مقالة دكتا سويس عدالكاسي مصر oo lagu qiyaasay in dad gaaraya 740 kun ay ku nool yihiin ayaa xad u dhaxeeya Aasiya iyo Afrika ku taala meesha waxay hore u ahaan jirtay magaalo Greek oo lagu magacaabo Klisma iyo magaalada Qulsum oo qarnigii 7aad muslimiintu markay qabsadeen u bixiyeen waxay noqotay dekad ganacsi oo muhiim ah kadib markii ay qabsatay boqortooyadii Cusmaaniyiinta markii la furay Suez kanaalka sanadkii 1869 magaaladu waxay tan iyo maanta tahay xarun ciidanka badaha iyo ganacsiga ku tiirsan iyo sidoo kale waxay noqotay meel ay xujaajta Maka ay sii maraan oo waagaas dabcan Afrika ay lug iyo dabcan kaga sii raaci jireen geela aan u gudbo qodobkaygan koobaad ahna qodobkayga ugu dambeeya waa magaalada ugu caansan qodobadayda waa magaalo qof kasta garanay maqlayna inay ku dhex taalo laba qaarado dhexdooda waxaana laga yaabaa maanta intiina ay daawanaysa inaabad waliba ku dhex noosheyn mise aad booqateen magaaladan waxaa sidoo kale degan dad lagu qiyaasay 16 milyan Istanbul waxaa kala qaybiya Bosphorus Strait oo ah marin biyihiisu aad muhiim u ah oo kala sooca Aasiya iyo Yurub waana mid ka mid ah magaalooyinka ugu booqashada badan adduunka taariikh ahaanna waxay ahayd xarun weyn oo siyaasadeed dhaqan ahaan iyo ganacsiba horumarsanayd waxaa la aasaasay 657 BC Istanbul waxaa hore loo oran jiray Constantinople
waxayna caasimad u ahayd boqortooyadii Byzantine laga soo bilaabo 330 ilaa 1453 iyo boqortooyadii Cusmaaniyiinta markay ahayd 1285 ilaa 1923 mise 23 waxay hooy u ahayd ilbaxnimadii Romanka iyo Greek waxayna buunto u ahayd laba qaaradood oo aad loogu kala dhex gooshi jiray qiyaastii 65% muwaadiniinteeda magaaladaas Istanbul ayaa ku nool dhinaca Daanta Yurub halka kuwa kalena ay ku nool yihiin inta kale soo hadhayna ay ku nool yihiin dhinaca Aasiya intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhammaan daawadayaal waxaan rajaynayaa inaan mar kale iyo barnaamij kale aynu saan oo kale ku wada kulno waxaad kaga tagayaa assalaamu calaykum